wuxuu ahaa nin u soo halgamay madax-bannaanida dalkiisa, isagoo aad ula dagaalamay gumaystigii caddaanka ee gumaysanayay, una maray madax-bannaanida dalkiisa rafaad iyo xadhig aad u dheer. Kadib markii ay xal u arkeen gumaystigii reer Yurub ee caddaanka ahaa inay xabsi u taxaabaan, waxayna xidheen muddo gaadhaysa 10 sano. Wuxuuna ahaa nin maruun ku taamayay inay dalkiisu helaan madax-bannaani. Maanta waxaynu muuqaalkeennan ku lafaguri doonaa madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, inagoona wax ka taataaban doonaa taariikhdiisii hore iyo siduu dalka ugu soo halgamay. Haddaba asxaabay, ku soo dhawaada muuqaalkeenna maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan idin salaamay dhammaan khiyaarta meel walba adduunka ka joogtaan. intiina muuqaalkeenna gudagelin, waxaa idinka codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horreysay kanaalka soo booqato, fadlan subscribe saar. haddii muuqaalkan ku cajabayna like saar, siina share gare oo kusii share gare baraha bulshada ugu waaweyn sida Facebook iyo WhatsApp. aad ayaad u mahadsan tahay. haynu gudagalno muuqaalkeenna maanta. ninka kan aad arkaysaan waa Robert Gabriel Mugabe, waa madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe, waana ninka muuqaalkiinu maanta ku saabsan yahay. haddaba Mugabe wuxuu dhashay sanadii 1924. aabihii waxaa la odhan jiray Gabriel, sidoo kale hooyadiina waxaa la odhan jiray Bona. haddaba labadan waalida Gabriel iyo Bona waxay haysteen 7 carruur oo ku jira Robert Gabriel Mugabe. Mugabe dugsigii sare waxa uu ka qalinjabiyay iskuul ku yaala dalka Zimbabwe sanadii 1949. isla sanadkaas ayuuna helay deeq waxbarasho heer jaamacadeed ah, waxaana siisay jaamacadda Fort Hare ee ku taala dalka Koonfur Afrika. haddaba jaamacaddan Fort Hare wuxuu ka qalinjabiyay sanadii 1952. sidoo kale isla sanadkaas ayuu dib u soo laabtay dalkiisa Zimbabwe, isagoona macallin ka noqday iskuulkii uu ka soo qalinjabiyay dugsigii sare. sanadii 1958 ayaa wuxuu tegay dalka Ghana, halkaasna wuxuu kaga shaqayn jiray shaqada macallinimada. sidoo kale dalkaas Ghana waxay isku barteen xaaskiisii ugu horreysay ee la odhan jiray Hayfron, waxayna isguursadeen sanadii 1961. Mugabe wuxuu ka qayb qaatay intii uu joogay dalka Ghana mudaharaadyo badan oo looga soo horjeedo gumaystiga caddaanka ee gumaysanayay. Mugabe wuxuu ku bixiyay juhud iyo dagaalo badan si uu dalkiisu u noqdo waddan xor ah. sanadii 1964 ayaa waxay dowladda Ingiriiska ku warheshay Mugabe oo aan dab yar shidayn, doonayana inuu waddankiisu helo madax-bannaani. waxayna damceen inay iska hor dhaqaajiyaan, wayna xidheen waxayna soo daayeen sanadii 1974. wuxuuna xidhnaa 10 sano oo xidhiidh ah. markii uu dib u helay xorriyaddiisii sanadii 1974 ayaa wuxuu tegay dalka ay jaarka yihiin ee Mozambique, wuxuuna halkaas kasii waday mudaharaadyadiisii uu kaga soo horjeeday gumaystiga Ingiriiska ahaa. wuxuuna dalkaas Mozambique kaga dhawaaqay xisbigiisii ZANU. Mugabe wuxuu ka caakufaba wuxuu ku guulaystay inuu ka saaro dalkiisa Zimbabwe gumaystigii, wuxuuna gacanta ku dhigay talada dalka, wuxuuna ka talinayay ama uu xukumayay 37 sano. haddaba muddadii 37 sanahayd ee uu xukumayay wuxuu ku xukumayay gacan bir ah iyo xukun qallafsan, shacabka intiisa badanna taamay dareensanayn. ugu dambeyn Robert Gabriel Mugabe waxaa xilka laga tuuray sanadii 2017 kadib muddo aad u dheer oo uu talada dalka hayay. Mugabe wuxuu dhintay sanadii 2019, wuxuuna ku dhintay dhakhtar ku yaala dalka Singapore, xilligaasna wuxuu jiray da'da 95 jir. inahaas aynu ku gabagabaynaa muuqaalkeennan. fadlan haddii aad kanaalka cusub tahay subscribe saar, hadduu muuqaalkan ku cajabiyay like saar, hana iloobin inaad sii share garayso. tan iyo kulanti dambe intaan ka kulmayno, fi amaanillah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.